qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhowey qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhowey السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نغلا سعته وسرقات تي في حتى انت اينو اقوذا قلين برنامج كعاديات كوحيسها بدنا وينو هل كان يكوزو قد بدونا وحاني لنكا وصنا انا سيشارف لإناد فبسكراب شارتان جنال كسرقات تي في قنبالا كان عاد فرطان qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhowey qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhowey fanaanka caanka ah Mohamed Saciid BK ayaa dhawaan soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook فيديو aad ugu xumaadeen bulshada Soomaaliyeed kadib markii uu yiri qofba qofka uu ka caansan yahay ayuu ugu dhow yahay Ilaahay xaqiisa uuna gali doonaa maalintii yawmul aakhira jannada qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhowey arrintaasi ayaa aad u qabsatay baraha bulshada dadyowi ka farceliyeen waxay ku tilmaameen inuu Mohamed Saciid BK meel uga dhacay shariicada Islaamka. haddaba arrintaas iyo waxay diinta Islaamka ka qabto waxaan wax ka weydiiyay Sheikh Cabdiraxmaan Dheere oo kamid ah culamaa diinka ugu waaweyn Somaliland. Sheikh Cabdiraxmaan Dheere oo noo sharaxayna wuxuu yiri sida tan hadalka sharciyan hadaynu ku eegno إلهي سبحانه وتعالى وحي نوغو شيغي قرآن كيسا كريم كا أسبابتا أما أرمها أكتيسا لغو كرامة يشو أما إلهي لغو كالدو يهي إلهي وحي نوغو شيغي إني تهي الله كعبسيغا يتوسنانتا لغو توسنادو أوامرت إلهي يا أوامرت النبي صلى الله عليه وسلم الله قرآن كيسا وحكولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتيسا وحا إذنكو شرف يما موس بدن أو إذنكو كرامة بدن kuwa idinku alla ka cabsiga badan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah ma oran kuwa idinku magac dheer leh kuwa idinku caansan Ilaahay ma oran wuxuu Ilaahay noo sheegay sida loo kala alla ka cabsi badan yahay Ilaahay loogu kala dhow yahay subhanahu wa ta'ala waxa kale nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam Ilaahay cid uu jecel yahay inaanay marar badan ba inaanay noqon xataa dad la yaqaano nabigu wuxuu yiri inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-khafi Ilaahay wuxuu jecel yahay buu nabigu yiri adoonka Ilaahay ka baqa ee iska qarsoon dadku waxa taadee doonayay aqoonaanin yaanu caan ahaanin yaa la garanin laakiin Ilaahay ka baqanaya iskana qarsoon oo cid baanay garanin buu Ilaahay ugu jecel yahay subhanahu wa ta'ala adoonka waa jecel yahay marka yaana waxa weeye caannimada iyo qofku inuu soo caan baxo ama magac yeesho ama bulshada ay markaa wada barataa uma aha base iyo sabab iyo saldhig uma aha inuu Ilaahay jecel yahay subhanahu wa ta'ala marka hadalkaasi waa hadal qaldan haduu uga jeedo qofka Ilaahay uu jecel yahay umada Ilaahay u dhaxdhiga qabuul taasi waxa weeye waa hadal sax ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay Ilaahay markuu adoon jeclaado wuxuu u dhawaaqaa Jibriil oo hebel waan jeclaaday adiguna jeclow Jibriil malaa'iktu u sheega Ilaahay hebel waa jeclaaday idinku jeclaada malaa'iktuna way jeclaataa dabadna arrada waxa loo dhigaa nabigu qabuul iyo aqbali macna dadka Ilaahay oo dhan ba raali ka noqday intooda badan yaana waxa weeye marka ama amaan ba dadka loo dhaxdhigaa هذا القصي يعني رسول صلى الله عليه وسلم وتلمامي معني واساس اما ان لا يراادو قفبا قفكو كعانسن yahay ama ka magac dheer yahay ayuu Ilaahay xaqiisa uga dhow yahay hadalkaas sax maaha waxaan ognahay dad badan oo caan ah oo hadana ahlu naar aha Abu Jahl ba kamid aha Abu Jahl yaana maka iyo hareeraheeda ama Carabi nin ay magaciisa wada taqaan oo magac dheer ayuu ahaa Abu al-Hakam baa la oran jiray yaana oo Carabi u taqaanay hadana maca dhalik wa min ahli an-nar sida Ilaahay uu noogu sheegay Quraankiisa subhanahu wa ta'ala marka fircawn waa garanayna dadku dhan way yaqaaneen hogaamiyo ahaa dadna ahlu naar marka ruuxa uu magac dheer yahay ama bulshada taqaan macna kuma sameynayso Ilaahay agtiisa waxa karaamo iyo sharaf qofku ku yeelanaya Ilaahay inuu ka baqo subhanahu wa ta'ala shariicada Ilaahay ku toosnaado marka hadalkaas hadal sax ma aha waa hadal qaldan sida marka uu qofkii yiri uga jeedana waxa weeye hadii ay tahay uu islaha waxa tiraahdaa sida yaana qofka Ilaahay markuu jecel yahay dadkiisa ayuu u dhaxdhigaa marka yaana sumcad iyo hadal wanaag iyo marka amaan wanaagsan taa sax bay ahaan lahayd laakiin hadalku sida imka uu yaalo waa si qaldan weeye qofkii hadalka yiri waxaanu leenahay hadalkaaga dib u hagaajiyo u sax hadii macna sax aad uga jeeday qofka Ilaahay jecel yahay arlada Ilaahay qabuul u dhiga hadalkaas sida uu yahay nabigu uu yiro kala u dheh
لكن هذا الكاغا صداع أطري حتى ضد مع نفسه حوجة شيء دي وهذا الخلدن سجنا وحلينا هذا الكاديب وقرنقه ديب الصح وحنا ترى هذا قفك إلهي سبحانه وتعالى وتشعل هذا السماء وكتشعل هذا الرضا يا إلهي قبول أولئك سبحانه وتعالى هذا الكاس صنوع صحينا شرعيا صحينا ترى أما هذا الكاغا هراء sida loo kala magac dheer yahay ee loo kala sumcad badan yahay ama loo kala caansan yahay baa ilaahay loo kala dhawey hadalkaas hadal sax ma aha intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta ayaynu ku soo qaadanaynay xadgudubka uu sameeyay Mohamed Saciid BK hadaba bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan walaalkeen BK inuu ilaahay ku soo hadiyeeyo uuna ka soo noqdo qaladaadkii uu ka galay diinta Islaamka qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhawey qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhawey ka aamin